السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمان Soomaaliyeed kulay vlog-yada aan soo daynayno maanta waxaa ku jiro dhacdo la yaab leh oo ka dhacday xaafaddan Hakatua aan joogno. waxaa degan gabar la yiraahdo Khaali Cabdi Cali xaafadeeda ayaan tegaynaa oo aan rabno inaan ka wareysano dhibaatadii ku dhacday maalin dhoweyd gurigeeda Jimcihii la soo dhaafay oo aan rabno inaan laba eray ka weydiino siday u dhacday, maxaa sababay, maxaa keeni karo qof islaamid gurigiisa inta lagu soo weeraro lagu dilo. su'aalahaas oo dhan aan weydiin doonaa insha Allah tacaala. daawasho wanaagsan. Peace out. Khaali Cabdi Cali oo ku salaam marka hore kusoo dhawaamay Muuga Vlog. aad u mahadsantahay Khaali. kullayte su'aalo badan ma ku weydiinaa laakiin nabarraa wejigaaga ku yaalo YouTube-kaaga iyo social media waxaa ka arkay dhacdo la yaab leh gurigaaga dhexdiisa inay ka dhacdo. Khaali bal horta marka ugu horeyso inta aanu ku aqoonin oo aniga taqaano inta ku taqaano ku taqaana intaan ku aqoon portrait Khaali iskambar Khaali watuma Khaali Cabdi Cali aan dhahaa heer oslaan ahay tiktoker ahay youtube no aan haystaa qof dhalinyaro ahay degan Norway magaalada Oslo. Noo ka hadee barashadeeda familigeyga waa heer Muqdisho jiraan waka aad u mahadsantahay Khaali. portrait hadaan gudaha u soo galno sababta inta u fadhina ama wareysigan kaaga qaadayo vlog-geyga aan rabo inaan kugu soo daro waxay tahay dhacdo maalin dhoweyd muddo Jimcihii la soo dhaafay inay ka dhacday gurigaaga dhexdiisa ama xaafadda aad degan tahay. gurigeyga halkan ka dhacdo gurigaan aan ku dhex jirnay ka dhacday. halkan ka dhacdo waxaa aragnay video oo aad joogto isbitaalka dhaawacyo kugu yaalaan faruuryaha ama afka iyo waxay ga gaarin madaxa iyo jirka jirdila lagu sameeyaa. Okay, bal waxaa rabaa guud ahaan dhacdada say u dhacday guriga dhexdiisa ku bilaabatay adoo noo waxay ku bilaabatay gabar mataqaana oo meesha mataqaana lagu akhrista isku baranay sanad ka hor library-ga isku baratay. okay waaga ardayga ahaa ba mar badan ila soo xiriirtay horto ay u dhado ku imaana ani saaxiibkay laakiin aniga chance waay ma fahmaysaa. Jimci baa chance u helay markaas waxa uu leedahay saaxiibkay ku soo socona Khaali markaas waxa ku dhacay ee imaado way imaadeen guriga markuu soo galo hadda markuu ugu horeyso albaabka soo gasho waxa ku qabanayo calanka Soomaaliya kursiga saaran kursiga calanka markasta saarnaa soo calanku candhuuf ku tufay guriga candhuuf iga tufay. Okay, calanka aniga markaan soo galo waa shumiya asaga candhuuf ku tufay. Okay. Asa candhuuf ku tufay gurigana candhuuf iga tufay. soo waa shoogay ma fahmaysaa qof gurigiisa lagu dhex jiro haddana aniga ay korisaa ahay qofka ayadii xidhi jirtay markasta qof gurigaada haduu ku jiro markasta hoostaad u jooga ina xushmad gooni ee kasta aasiistii waa ma fahmaysaa.
soo qof guriga markuu ku jira aniga gabadhii waxaan ku yidhi ninkan adigu kula socdaa walaalo calankaygana canuuf kuma tufi karo gurigaygana canuuf kuma tufi karo adigu kula socdaa la halaalo okay guriguu soo galay calanku canuuf ku tufay kabacdi maxaa dhacay kabacdi waxaa dhacay gabadhaan dhahay la hadal ana aad baa u xanaagay laakiin xaggaasaa fadhiistay ma fahmaysaa sababtoo waxaa dareemay gurigayga in lagu jiro laakiin qalad laygu samaynayo ma fahmaysaa soo gabadhaan waxaan ku dhaha hadal si jilicsan bay ula hadashay kamaan helin siday ula hadashay laakiin si yaroo jilicsan bay ula hadashay anuu iska sii aamusay waxaan ku in la intiraama fiican baa kulkas wuxuu ku hadal wuxuu ku celcelinaa calanka amaana dhameeyey ana waxaan ku dhaha calankan kumuu dhameeyey calankaana dhameeyey muxuu la jeedaa calanka waa marana wax ma dishay mara wax ma dishay waa taan ka yaababa calankan baana dhameeyey calanka kumuu dhameeyey baa ku yidhi markaas wuxuu taagan yahay siyaad barhana dhameeyey okay calankaana dhameeyey wuxuu ka wadaa dowladda siyaad barwaagi waqooyiga ee dagaalka iyo ciidanka anigana qaali aldhaa afkan ka falanaya waxaan dhahay meydkii lasii sidaa u dhawaay baan ku yidhi shalay gooja caddaa u dhawoor gooja cadda aad baan ku yidhi iska daaya wax sanadii koor lasoo dhaafay anugu aan xasuusan adina aan xasuusan soo sheekada halkaasay ka bilaabatay okay marka iyadoo calankii oo candhuuf ku tufay arrinta ay ku dabaqsantahay calankan iyo dhibaatadii waagi hore reer waqooyiga loo geeyey qabriga ku jiro kule laakiin adi waxaa ka carab dhowday in meydkan lasii sido oo ugu dambeysay kii maxato gooja cadde marka taa ma keeni kartaa in xoogaa carag gelisay oo xanaaqay wallaahi yabaadke waa laga yaabaa ani ma garanayo ilaa hadda waaba shogsanahay justina waa kula taaganaha walaa waa shogsana wixii lagu dilay halkaasaa fadhiya hal mar un baan ka war hela feer okay marka feerka marka gormuu bilowday markaa tiri meydkii lasii sidaa ugu dambeeyay baxqooja cadda aad markaas muu feerka bilowday mise cabaar waqtiga u dhexeeyay gurigayga gooja cadda ma ahan baa ku yidhi okay so orod gooja cadda aad baa ku yidhi haddaad dagaal u baahan tahay so ana cabaar baa sii joognay kabacdi buu i dilay okay marka ma hal maruu soo booday hal maruu soo booday ha mase hadalaa idiin dhexeeyay ma hadal nooma dhexin anigu waa iska aamusay cabaar baa joognay kabacdi gabadha dhexdeena ku jirta asiga halkaa uu fadhiyay hal mar buu soo booday anigu xataa ma filanayn waa arka kaxay so aniga asigan ku feerkii waxaan ku arka kaxay iska qabashadaan iska qabanayay so waa iska qabtay wuu kala tuuray so xataa madaxa meelaha igu dhacay ma fahmaysaa so waxyaalo badan oo ii geysto cabaar baa isla dagaalanay so cabaar markaa isla dagaalanay kabacdi haddana markuu arkay dhiiggayga soo afkayga dhiig baa ka imaaday madaxayga dhiig baa ka imaaday aninta waa dadku waxaa mataqaanaa maskaxda ka tagto markay dagaal galaan ma fahmaysaa ogaalka dhanba asigan ku mitida ani asigan qabsaday so inuu cararo isku dayo walbaabka ka boodo so ilaa banaankaas la tagnay soo gurigayga banaankiisa waan qabtay waxaan ku yidhi amba carar amba ha cararin waan ku hayaa so booliisku waa inaan sugtid baan ku yidhi ilaa intaa isla soo aadeen kabacdi intaas kula dhacdeen ilaa halkaa sarwaaka dhiigayga xataa wiil bashaarsan intaas ku qabsanay so halkaan baa saaray marka waxaa u rabi mataqaanaa inaan halkaas kala dhacno labadayna aan ku seesana ma fahmaysaa xoog baa usoo celiyeen xoog baa usoo qabta halkaan baa saaray kuli gacanteeda ku jirtaa alxamdulilah horto sidaa caato ahay iyo saa khamirjo ahay laba kartaa so halkaan baan cabaar isku haysanay waxaan ku yidhi gurigayga kamera ku xiran you know soo ujeedaa meesha meel central oo ma fahmaysa waxaan ku yidhi haddaa fakatid iyo haddaad fakaninba kamera ku hayso adeero so kabacdi wuxuu dhaha waay idaa markaan dhaha kamera ku hayso wuxuu dhaha haye waaya idaa gudahu gala marka gudaha markuu kala gabadhan gudahay taagneed booliskii may wicinin adeero dirisaan haysta waa ujeedaa xagaan diris baan ka haysta xagaan diris kale iyo may wicin may qaylinin okay diriskaa ma soo bixin intaas diriskayga ma soo bixin anaa ku gargaraa calaashan may soo bixin ilaahay markiis habeenkaa ma soo bixin meeshaasna fakta joog jira habeenkaa fakta muu joogeen okay marka kabacdi booliiska imaaday kabacdi booliiska imaaday anaa booliiska waa taleefka gabadha ka wacay fadhi taleefkayga wuu iga faniinay ma fahmaysaa so taleefkayga wuu faniinay gabadha taleefkeeda waxaan ku dhahay waa wada hadlaynaa bay ku tiri ninka gudaha markaan ku xariya ana halkaan baa taagnaa ma fahmaysaa albaabkaan taagnaa so waxay ugu tiri gudaha soo gala wada hadlaynaa wada hadalkaagana ma naqaanaa kuri dhiig baa iga socdaan marka xoog baan u caraysanaa nasiib taleefkaa ku dhaha taleefka waa kasoo qaatay booliiska markaa taleefkeeda ka wacday gabadha okay booliiska imaaday ha taleefkii gabadha gacanta ku heshay booliiska wacday maxaa dhacay kabacdi booliiska imaadeen anigay wareysteen unu sheegay wixii dhacay asigana gudaha lagala soo baxay markaas okay booliiska wateen marka booliiskii asaga watay ma rabno inaan detailka gudaha iyo booliiska iyo hadaladiisa aan sii galno because weli kiis furan waaye oo socdo marka waxba lagama sheeka laakiin waxaan rabaa inaan gadaal u noqdo
خالي أنت بدو حلقوية قناة قف تيك توك راتهاي قديدة خاتمو أنت سعودي سومالي لان ودحي سنة وحبضن تيك توك ردو لغا أركاي رونهانتي قف حتى خاتمو قديدة أب سبوت بري سوما ولغو يقانو إنكستو soomaalinimada ka horeysay waana weligeena Soomaaliland waa kasoo horjeeda iyo mataqaana goon isku taaga dadka goon isku taaga aad baa ugu soo horjeeda weligay qaatumada de waxaan u arkaaba wax waajib ah in la taageero oo qadiyada qaatuma lagama maro marka ma isdhihi karaa dhacdadan amay khusaysaa maadaama wiilka oo calanka nacbaa calankii uu yiri waa in lagu baabi'iyey adigana aad ku durtay maydka ugu dambeeyay khaatumo maxato ayraada gooja cate ugu dambeeyay marka ma keeni kartaa taas inuu carada keento dagaalka ama wax hore u soo jiray oo kiisa oo ku dabaqsana oo watay oo intaas lagu dhibaateeyo arinta tahay waa u maleynayaa sababtoo ah ninkan aqoon isku maan hayn gabadhana ii keentay in uu ida saaxiib la hesha ay sheegaysa ma fahmaysaa gurigeyga ka umar ku soo garan wuxuu ku tufay ficilku ugu horeeyay uu muujiyay waxay ahayd mataqaana calanka inuu mataqaana candhuuf ku tufay gurigeyga candhuuf ku tufo so ana waxa u maleynayaa aad u social media iga daawan jiray ninkaas oo dagaalkiisa nin fudud ma laakiin keeskaas booliska mataqaana ku daba jiro okay marka hadda maxaa dadweynaha maxaad u sheegaysaa in hadda kule waa soo kabsatay nabaradii waa ka baaba'een weli jugti waa kugu taalaa xanuunku weli waa jiraa marka dad badan oo adiga ku yaqaano oo aana dhacdo xitaa si fiican u ogeyn kugu og inaa xanuunsatay oo nabar kugu dhacay maxaa la wadaagaysaa walaa ani waxaa leeyahay qof aan nagaranayn gurigaas ku keensanina ama qof haddii uu mataqaana qof kala wato iska warqaba sababtoo wuxuu sameynaa alama wixii aan igu dhacay soo waxaan leeyahay markasta dad waxaa jira xag jiryaal ah gacanta ka soo horeyso soo marka aan ku heer Yurub nahay inta gacantu ma fiicno anigoo saa leey dilay oo saa dakhra leh ugu dhuftaxtay gacan man qaadin taas waxay ka micno tahay soo xataa inaad noloshaada ku weynaysid hadaa gacan qaadid sharciyadaada iyo shaqooyinkaaga ma fahmaysaa soo waxaan leeyahay dadka alla kulmeysaan ogaada aad iskaga baara inta qofka la kulmo aada umahadsan tahay kolley dee wixii ka soo baxo kolley waraysi labada kugu soo laabanayna oo kolley lagama hadli karo saa igu sheegtayba weli arrintan booliiska hoos taala kii socdo waaye gacmaha lama geli karo ilaa iyo wix decisiona laga soo gaaro marka kolley respect that oo aadan kugu xushmayna su-aalo kaleeto dheeraada kuwa kaa weydiinayno meeshu kiiska maraya iyo maxaa lagu xukumay iyo arintaas kama hadli karno marka aada umahadsan tahay waxaan kuu rajeynaynaa inaa caafimaad ilaaha ku siiyo oo nabaradan kugu yaala si dhaqsaha badan ay kaaga raystaan kolley mar dambe qof ma soo geli doontid aan umaleyna gurigaaga aniga naftigeyga haddii ilbaabkaa furan xitaa ani xitaa taxadaraan ugu jiraa adiga may mugaa ku qanactay albaabka horteeda ka taa lees aamini ma yara aaminaadii ay yiraahday laakiin taas igama hor istaagaysa dadka caawin jiray Soomaali jacaylkii laakiin wax yar u taxadir baan muujinay wax maalinka qof la dilay calanka dartiisa dhiig iyo yaalo ana sida ninka baan u dagaalamay ta la booliska u wacay sheerka la jiifinayaa عارفة حاليا إنا دي شو أوبرتين هذا كله ما نسكت لا موبيل كي أي كفرني اللي مدي لنا عاوز فما كلا إيمانها حتى والي جبت لي مدح والي جبت لي شنت والي جبت لي هذا أمبراسي إيماني سأقاضي أسبتار كي جيني فقط على جبت مع والي قفاك وقولنا كبيرة كشاكا كراعي بدي شيء محكا راعي هذا مشي البصي حمزة أنا فرح يسحن أحيانا بلا إني تشانا أمبرتين خالص المدين ليك إلي هلو خلاص كنت أنا عربو مركي يدي الحب مركو يدي لي خلاص كنت أنا عربو بس مركي لا يقوت وسيو من لما تنجل سامو قوم كنت أنتو كوسكم هاي أنا حكرتها قفور كلي بتشي مدحلي
idinka sheekay doonaa soo hadda waxa aadaya mataqaana